بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. من معالم الإسلام معالمة الإسلام كوحاكم إذا دسمة قري إسلامي إن الدسو قري إسلام إن الدسو وغير الدسو معناه هذا هو قور إنه الدعاء قور كاس وحكى لنا قري إسلامية والله دسي إلهي سبحانه وتعالى رتاس هذا النوغو أماني رسولكم صلى الله عليه وسلم قول يفعل بوا أسميه وأنا براتكي وقور سدي reer badan waliba guursaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh walaalayaal maqaasida shareecada waxaa ka mid a ummadda muslimiinta in la badiyo ayaa ka mid a in ummadda muslimiinta la badiyo oo la gaarsiiyo inay noqoto yani alumma almuhaymina ummadda muhayminada ah sida kitaabkooduba ay tahay inuu noqdo muhaymin inuu kitaab muhaymina u noqdo oo dhammaan kutubta dhan isagu muhaymin u ah taas ayaa asal ah ولذلك إلهي سبحانه وتعالى وحو مسلمين وجدي إني بديان أو جيسن مجليان جوركا قال الله تعالى الله حليه ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هذا إلهي وحاكم إذا إنه إذن نفتين إذن كجا أبوري هوين نفتين يحسشوا لتسكنوا إليها سياد وحسشان وجعل بينكم مودة ورحمة waxuuna dhexdiina dhigay kalgacaltooyo iyo isu naxariisasho oo labada yani qofood ka dhexaysa marka haweenkaas naxariista iyo kalgacaltooyada dhexdooda la dhigay oo haween ninkuna uu haweenta u xasilayo iyaduna ay u xasilayso waxaa laga helaa waa guurka islaamiga kaliya guurka islaamiga marka muxuu ku dhisan yahay ususuu ku dhisan yahay usustaas waxaa ugu horeeya in shareecada islaamka lagu yegleelo gurigaas oo aan la ogolayn wax kasta ee shareecada ka hor imaanaya waa mamnuuc guriga ilaahay baa barakeynaya subxaana watacaala guurku guur mubaaraga uu noqonaya marka diinta macaalimtiisa lagu ilaaliyo waxaa kamid a ilaalinta haweeneyda in waalidkeeda ay bixiyaan oo aan lala dhuuman oo aan lala cararin oo tuugannimo aysan kugu soo gelin guri tuugannimo ka bilaabanayo reer tuugannimo ka bilaabanayo iyo sariqatul adawaadaba ilaahay xarimay in digsiga iyo qaadada iyo malqacada layska xado ilaahay xarimay marka ma wuxuu ogolanaa bani aadam in la xado weliba haweeney gabadh yaroo cafiifada guri inta lagala baxo aabaheed iyo walaalaheed oo dhinacyada ka jooga in juqda inta lala aado maaragtay iyadoo maaragtay maxram aan wadan maxramama la socdee nin ajnabiya intuu farqa ku rito inuu 100 kilomitr xagga inta geysto oo guur been kusoo taago haddana uu guri iska geysto waa tuugada mid ugu weyn waaye akbaru sariqa waaye marka arrin khatar waa arrintaas waxaa ka mid a marka guurka in usus lagu dhiso islaamiya nabigu wuxuu leeyahy sala allahu alayh wasalam laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahiday cadlin nikaax xalaala ma jiro oo saxa ilaa weli in gabadha uu nikaaxiye maahine iyo 2 qofood oo markhaati ka ah guurkaas shaahiday cadlin oo caadil ah dad wanaagsan ah waa xadiis saxiix wey oo kitaabka manhaajkana saasuu lafdi ahaan ugu qoran yahaba arkaanta guurkayba kamid tahaba in weli la helo iyo 2 markhaati ah iyo iijaab iyo qabuul iijaab iyo qabuul يعني gabadha inuu yiraahdo ninka waa ku siiyey ninkana uu yiraahdo waa aqbalay labadaas waa shardi iyaduna arkaanta guurka intaas waayba meherkuna waa sunno haddii la sheego haddaan la sheegin guurku ansaxa hadhow mithl wax la yiraahdo siina quraanka baa ilaahay ku sheegay subxaana watacaala marka waxa waaye guurkaas marka waa in shareecada la waafajiyo kow laba waa in gabadha ninku markuu guursanayo qof ahludiin u xushaa isugu waa inuu horta ahludiin ahaadaa qof wanaagsan u xushaa ahludiin marka la leeyahay shardi ma aha inay tahay gabar oo aad u sareysa oo diinta wax badan ka taqaano oo culimada oo jaamiciyada ma shardi ma aha waxaa muhiim qof salaada ilaahay dukata dhowrsan ka fog waxyaabaha akhlaaq xumada ah cafiifad ah korkeeda u asturan yahay khalaas intaasaa kafay ah intaasaa kafay ah aysan ahayn qof iska balaqbalaqlo iska qaawano madaxeedu qaawan yahayo jirkeedu iska qaawan yahay meelaha iska socota dee qofkaas yani munaasab ma aha qofka mu'minka ah inuu guursado munaasab ma aha waa inuu xataa hadduu guursanayo uu waaniyaa oo yani gabdho waxaa iska jira wanaagsan qalbigoodu fiican yahay akhlaaqdoodu fiican tahay laakiin xagga asturkooda liito oo jenis isku dhejinaya sirwaal jenis madax u qaawan yahay dadkaas inta badan weli wadamada gaalada ku nool alxamdulillah soomaaliya hadda waa ka caafimaadeen waxaa noogu dambeeyey waagi kacaanki ayaa isla waxaas ay meesha ka baxeen marka taas lafteeda gabdho fiicana ku jira gabdho fiican oo xagga akhlaaqda iyo xagga dabeecadda iyo xagga yani amaanada iyo xagga aqoonta iyo dhinac kastaba kuwa xijaaban qaarkood ka fiicana ku jira xaqiiqo waaye laakiin tala xuma haysata taladaa loo toosinaa marka waxaa weeyaan waa la waaninayaa hadday isbartaan xataa wuxuu leeyahay walaalay aniga maarata waa ku rabaa inaan isguursano laakiin saan maygu anfacaysid وبها دكروين waa isagu
hadduu isaguna galab kale yahay oo maaragtay suraalka jeeniska uu ka dhacayo oo waxba islaaminaya iyagu mogta kuwaas maba laga hadlayo xaalkooda iyaga dhama u baahan in juhdi lagu bixiyo si loo soo hagaajiyo laakiin hadduu isagu xoogo qof toosan uu yahay gabadh inay weli galab tahay inuu waaniyo oo diinta ugu yeero oo markaas hadday aqbasho mararka qaarkood hanuunka jacaylka ayaa abuuraba wiil iyo gabadh isjecel oo gabadhu galab tahay ama wiilku galab yahay gabadhu ay mu'mino tahay waxaa laga yaabaa saamaynta uu saameeyo gabadha ama iyadu ay saamayso inay midda daaciga muxaadarada dhigaayo inay ka badataba oo ninkan gabadha markuu quruxdeeda iyo ka helo dabeecaddeeda laakiin isagu ay wadaad tahay isaguna uusan wadaad ahayn markay tiraa walaalo waa ku jeclaha waana fiican tahay laakiin salaada duko sigaarka iska dhaaf jaadka iska dhaaf dharkaaga si fiican suraalka maaragtay dhulka jiitamayo xoogo kor usoo qaad ciribtaada uusan dhaafin wixii ka hooseeya maaragtay ciribta waa finaar qof toosan noqo hadduu yiraahdo dadka fiican saalixiinta la saaxiib waxaa dhici karta markay intaas tiraahdo inuu yiraahdo qabuul ila gabadhuu rabaa jacaylaa jira meesha ani si kale kuma soo geli karta tiraahdo boqol muxaadaro la siiyo waxaa dhici karta inaysan anficin laakiin intaas ay anfacdo sidoo kale cagsigeeda weliba dhinac kale usii badane in gabadhii haddii idoo galaba ninkan ay jeclaato ninkan uu jecel yahay nin wanaagsan oo muhdayn uu yahay isagoo maadaama imkaaniyaadkii wixii uu haayo waxaa laga yaabaa inuu yidhaha walaali waa fiicanta laakiin iisoo xijaabo quruxdaada maba laga sabri karaba adiga laakiin haddaad xijaabataad kasii fiicanta si alaabtan deecdeecaysaan ragga kale aysan u arkin ani kaligeen qolkaygan markaan joogna aan istaragno waxaan banaanka yaalo dhan iisoo qari hilibkan gudguduudan soo qari waxaa dhici karta inay aqbashabo oy tiraa bis tegeyna hadda ka hor nin wadaada wuxuu noo sheegay ingiriiska annagoo dabaalanayna wuxuu yidhi gabar gaalaan laku imtixaano qaawan sidii habartad dhasho iska ah ay ta timid ay maaragtay ay cawradeeda si meesha inoogu ayaa wuxuu yidhi aan isaga soo baxay yidhi biyaha midaan ay ku fidnayn aan isaga soo baxay buu yidhi markaas soo daba kacday buu yidhi ninkaas diintu ay waday akhlaaqda oo dhaqan kale fiiri iyagoo gaalay og yihiin gow albaabka soo garacday markaas ay laba wiil ay ahaayeena maaragtay mid ka furay markaasi tiri aawo saaxiibka markaasuu yidhi quraac uu samaysanaa bas ma soo geli karaa waa soo geli karaa meelaan fariisanay buu yidhi isaga nooga sheekeynayo gabadhii markaan soo baxay oo jihada ka soo baxay waan u imid yidhi waxay tiri dhini maxaad nooga soo carartay quruxdeedii ma ku cajibi weysa maxaa ku soo cartay biyaha war aniga quruxdaada maba kusoo fiirin shaqana kuma lihi meeshii waa adaa noo diiday anagu naga qaaqaawan waxaas ma fiirsan karnayo saasaan iskaga soo tegay maxaa jira ma qurxani miya waa qurxanta yaa qurux kugu dhan laakiin markaan dabcan waa soo libista fustaankeeda ay wadataa iyo maarata waa faydanta iyo waxeeda iyo kaasheeda waaweyn baawarkeeda wataa waa gabar baawar cusub wadata qurux badan waay oo jagwarka baawarta ugu qaalisan ingiriiskeeda wataa bes hor quruxdaada waa fiicanta laakiin aniga quruxdaada waxba igama saaree diintiidana soo carar aniga haye hadda maxaa rabtaa aniga adaan ku rabaa tiri maba kaa tegayaba maanta war hadda aniga iyo adigu isma qaban adiga gaalataa anigana muslimaan ahay isku diima mihimba kaagaan isugu mahayn ay tiri islaamkaaga markaasaa wuxuu yidhi waxaan andabcay buu yidhi awali toog yaa kaa baxshaan islaahay yidhi hadday balada islaamkaan isugu imaanaynaa quruxdeedana maba la arki karuu yidhi si u taal aan yidhi waaye hadday saas tahay bal galabta aan markas ku wadaayaa waa islaamaysaa dharaa lagu gelinayaa waana ku guursanayaa diyaaraan ay tiri meelba kaa aadi maaba hadda nawad waawad markaskan geeyo yidhi waa soo islaantay xijaabay qaadatay gabadhi ninkaas markii dambe wuxuu sheegay inay 7 caruur u dhashay madiina munawwara ay markii dambe joogeen hadda iidaa dhibigu oo yiri maxaa yeelay kutubta inta qof mutacallimad ee kutubta inta akhrisatay ay adkaaru sabax wal masaa subaxda way kicin yiri subaxda inaan seexdo bacda salaad fajr hurda iga caddo ma seexanaysid laazim adkaarta horta akhri salaatu liilka waa soo kicin yiri salaatu liilka antu kan war aniga wadaalanahay meeshan waxa ku qoran oo in fuliyaa wuxuu yiri waa dadaalkeeda ma la dhamin karo quraanka akhri ilaa quraanka bar quraanka waa barato yiri habeen maalin 3 bari ku dhamanaysa quraanka qof cibaado badan salaf saalix oo kale waa meesha ka soo bilowdana fiiri marka gabdhaha iyagoo qaaqaawan qaarkood oo galaba yaan laga quusanin fiiha khayr gabadha in loo sabro la waaniyo diinta loogu yeero haddii xoogo maarata nin ay raadinayso la yidhaha war nin fiicana ku guursanaaye meelahan goobaha oo baktiga oo qamaarka iyo shiishada iyo xaaraanta kasoo tag soo bax annaga wax ka fiican ku hayne ma garatay oo la waaniyo oo loo caqli celiyo oo marka dambena nin lagu daro gabdhuhu inta badan waa ninkooda yani ay raacaan hadday nin fiican oo dabeecad leh uu noqdo diintana waa ka qaadanayaan dhaqankana waa ka qaadanayaan marka madax qoyaan lagama quustay Soomaalida madax qoyaan lagama quusto marka dadka dhalinyarada oo ducaada ah oo dadka markay wax yaro galabnimo iyo akhlaaq xumo ku arkaan haydaarinayo caayayo lafaha ka caayayo ereex inuu ku magacaabayo ilaahay ka baqaan iska dhaafaan dadka la soo jiito diinteena waxay ku tahay udcu ila sabiil rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana marka asaaliibta dacwada waxa kamida marka in dadka guurka waxa kamida in sidaas akhlaaqdaas lagu soo jiito
waxaa kaloo laga maarmaan si guurka u noqdo guur naajixa in gabdhaha wax la baro sida raggaba ay waajib tahay in wax loo baro soomaalida inta badan gabdhaha xaqeeda ma siiyaan gabadha in gabdhaha ay wax baraan gabdhuhu bilmunaasaba wiilasha waa ka fahmi badan yihiinba gabdhaha qaarkood wiilasha waa ka fahmi badan yihiin marka caadi ma aha aniga hadda group oo gabdha iyo wiilal oo iskool iga baxay number 1 gabadha ah number 1 ma sha Allah tabaaraka Allah iyada kow ah marka yaan la yasin gabdhaha marka gabdhuhu hadday wax baratagaan caadi ma aha gabdhuhu waxa waa raqam waaxid group kaleeto iyagana jaamacad aan geeyey oo luqad baranayay number 1 gabadha hadda noqotay wiilasha waa ka horeysa markaas caafimaad hore ka bilowda marka gabdhuhu yani mawaahiba ilaahay siiyey saaseen ahaan jireen weligood caaisha radiallahu canha waxay ahaaday min adkaa khalqi illaahi waxay iga uga faham qofka ugu faham badan cabdullahi bin cabaas ida la bartaman jiray xagga axaadiista waad aragteen axaadiista marka wax sahlan ma aha caaisha radiallahu canha wax ka xadiis badan caaisha waxaa ka jira abu hurayra radiallahu canhu number 1 qof kale kama horeyso abu hurayrana hadda nin u tafaruqay buu ahaa axaadiista caailada iyo nabiga axwaashiisana idaa number 1 ku ahba kow idaa ah walidaalika nisfu diin idaa laga qaataa baa la yidhaha ile nabiga sal ly slam noloshiisa nuskeed idaa la joogtay mogta adiga lama joogtida idaa ka soo qaada marka nisfu diin marka idaa loogu tagaa waxaa weeye marka gabdhuhu waa barako badan yihiin waxaa kaloo khadiija bintu khuwaylid um almuminiin xaaska ugu horreeyay nabiga sal allahu alayh wasalam taajirad bay ahayd nabiga sal allahu alayh wasalam xoolaheedu ganacsi ku samayn jira iyadoo u shaqaynaya marka dambena waa jeclaatay waa guursatay marka gabdhaha yaan dowrkoodu ma sahlana hala soo jiido waxa la baro mujtamaca nuskiis waayo waa nuskiis mana laga maarmo hadday hagaagaan mujtamac kastoo horumar sameeyo mujtamac kastoo hagaagsanna gabdhaha hagaagsanaa jooga hooyoyin hagaagsanaa jooga mujtamac isku duuban baa jooga mujtamac kastoo burburana haweenka ayaa baaba'san marka mujtamaca horumarkiisa waxaa lagu fiiriyaa yani haweenka akhlaaqdooda iyo diintooda iyo istiqaamadooda iyo xijaabkooda sida iyo tacliintooda heerka imanayso hadday haweenku ay hagaagsan yihiin mujtamacu hagaagsan yahay limaada lianna guryaha waxa gacanta ku hayo oo mudiraat rabaat ulbeyt waa haweenka waayo marka haweenku hadday saalixaad yihiin ilmo saalixiin hay soo tarbiyanayaan wiilal iyo gabdho saalixaada kasoo baxaya ilaahay subxaana watacaala ayaa ducadooda aqbalaya akhlaaqdooda la aqbalaa dhaqan fiican ilmaha iga afbaraya af fiican ay barayaan dhaqan fiican ay barayaan waxa marka mujtamaceena meesha aan ka hagaajin karno waa inaan gabdhaheena wax barnaa ikraamnaa ka farxinaa mar waa bintun kariima mar waa zawjatun saciida kariima mar waa umun yani mubaaraka saddexdaas macluumaad ka baxsan marna waa gabar yar oo la koolkoolinayo marna waa hooyo marna waxa waaye zawja la ikraamayo oo mawadda iyo raxmad kala dhexayso marna waxa waaye maaragtay waa hooyo lugaha in loo saliideeyo laga shumiyo iyo wejiga iyo madaxba oo adan habeenka seexa karna adoon labadaan ka shumin maaragtay ayay ku noqonaysaa marka wax lamida ma jiraan sal allahu ala sayidina wa nabiyina maxamedin wala aalihi wa saxbihi ajmaciin